عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeenimo waa habeenimo talaada oo 4 soo galayso taariikhduna waa 16 bisha September sanadka 2025 barnaamijka caawa waxaynu idinku haynaa wararkii ugu dambeeyay ee soo dhacay tan iyo intaynu kala maqnayn xaaladda magaalada Gaza waa sidee dagaal aad u qaraar oo caawa socda meelo badan oo kamid ah Gaza oo gubanaysa taangiyada Israa'iil oo dib loo soo waabiyay kadibna waxay geliyeen gawaari kale oo qarxaysa oo ay halka geliyeen dad fara badan oo bilaabay inay magaalada isaga cararaan xaaladda guud waa sidee Netanyahu iyo wasiirkiisa gaashaandhigga oo si toos ah iyagu markaa u hogaaminaya dagaalka Gaza ka socda تفاصيل وركي وجود بي حالة جزا واندين هيا وعسو كله برنامج كان يديكو جسو قد بين دورا حوت دكد حديدة ذلك يمن أو إسرائيل أي وررتي مغربكي يحوت جو مركي وجنت على كجوابي ورر علص الله إسرائيل صديقنا تفاصيل ما نديك جاية وضبلاس أينو برنامج كان عاو كفا فاهنينا انت كجرنا وحي ورر سوكرنا برنامج كأيان يديكو وذاك دور كلتي wanaagsan akhyaaray meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeeni habeenimo hadaba barnaamijka waxaanu ku bilaabaynaa xaaladda Gaza waxa noo dambeyn doona xootiga Israa'iil oo weeraray isdhaafsaday hadaba telefishinka Al Jazeera ayaa caawa wuxuu qorayaa warbixin wuxuu leeyahay Gaza way gubanaysaa وانا mid kamid ah habeenadii ugu xumaa taariikhda muddo 700 oo maalmood oo soo maray Gaza dadka iyagu falanqeynaya arimahan oo wax ka qoraya waxay ku tilmaameen kaanaha alqiyaama qiyaamihii la sheegayay inuu halka ka soo socday leeyihiin oo macnaha waxa meesha ku dhacaya iyo xaaladdu sida ay tahay inay aad markaa u kulushahay way kaanaha alqiyaama معناها وحواي عن عادي أحيانا لجوردية تذكي ماشي جوجي ولا جراعية بركة محل عي تاني تانو كلام مغني تذكي خبرة ده محير هذين دجال كسعود محل غيري قلبت برنامج كي أها وحبا ذنب إنه كل شيء أنت عن داون ويداون دوران برنامج كمركة محوية مركة دجال قلبت وحيد هذين أبادولي عيدا كوحي وران عيدا ماذا إنه جذيه قلين عمقه قلين كان قلين وركي مركز صباح وحليه إنه وكي دبا لو وابيه ما لي مراني واي تانكيه دي مركي أفرتلين علوغي من ويسوع عررين كدبا وحي قليين كواري تانكيه أو دقوبي أما ببيال قفلا أول حاها قرحا لقبوحيه كو أروريين ماشي القسامي الياسين كان لوردي سكان كله فاكو قرحواي ايغو دبي uga baxan marka si qaraxyadu aanay dhib u keenin marka maxaa bilowday magaaladii oo dhan inay isla gubato magaaladii oo dhan inay isla qaraxdo meel walba baalkaas soo geliyeen askartoodu way la carareen dadkii marka magaalada kama qaxayna laha maxay ku qasbanaadeen inay magaaladii ka cararaan dadkii rayidka oo dhan magaalada way ka baxeen maqribkii haddaba markaan idin tuso wakaaladda wararka ee Anadolu ayaa goordhow waxa qortay iyaduna warbixin ay leedahay Israa'iil waxay gelisay gawaari gaashaaman oo miinaysan ayay magaalada Gaza gelisay si markaa loogu qasbo Falastiiniyiinta inay halkaa isaga qaxaan oo isaga cararaan guryahay ku burburinaysa sida ay sheegtay hay'adda wararka u faafisa Israa'iil mawjada معناها عيدا لقطة أو كديران كرا إنه ماشى تقو مجرو مركي أي أركان إن لبا مر لصوه جومو أي كسوب بحال مركاسي وحي جليين مقالة ديوردن ألاب تنقرحي سيجليين أولنا حالي إلى ساكي دقيمة عن هور الله أرغي وذيني دقيني مركا حالكم مركو واكركرا يا مقالة وإسله العيشة حالته halkaasay maraysaa waayay marka dagaalkan toos ayuu Netanyahu u hogaaminayaa lagu leeyahay isaga iyo wasiirkiisa gaashaandhigga ayaa ghurfatul amaliyaad fadhiyaan meesha dagaalka laga hogaaminayo
waxyaabaha la yaab kale ee dadka wax falanqeynaya aan ka maqlayay waxay leeyihiin abaanduulaha ciidanku maanta wuxuu la shiray saraakiisha ciidamadiisa markaasuu wuxuu ku yidhi waa inaa ilaalisaan badqabka makhtuufiinta dadkana laka haysto ee halkaa ku xayiran inaad ilaalisaan. maxay ku ilaalinayaan? ma dadkii ma kala garanayaan? ma gaarigan miinaysanaad meesha geliso ku qarxisay miyaa maxbuus iyo maxbuus la-aan kala garanaya? marka macnaheedu waxay ku tilmaameen raggan waaweyn ee khubarada ah in aan wax la xeerinaa jirin meeshaan. netanyahu kooxdiisu inay go-aan ku gaareen war maxbuus iyo walaa maxbuus la-aan wixii meesha jooga dhulkaa lala simo si bal meeshaa loo qabto. waa qabsanaynaa waa qaadanaynaa gaza sooma dhihin inay bal sidii ku qaataan. nimanka kanuna waxaa leeyahay muqaawamada ah iyaguna baasuukahooday la ordayaan. casaa muusa ay ula baxeen baasuukaha la yidhaha alyaasiin markaasi taangiyadii nagta ku hayaan. marka sheekadu halkaasay maray. aan idin tuso marka wararkii ugu dambeeyey ee laga qoray netanyahu iyo dagaalka si uu hogaaminayo. netanyahu iyo Katz waa wasiirkiisa gaashaandhigga ayaa kulan leh si ay markaa ula socdaan ololaha military ee Gaza ayay ka arinsanayaan. haddaba kanaalka la yiraahdo 13 ee Israa'iiliyiintu ay leeyihiin ayaa wuxuu sheegay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Katz ay kulansan yihiin hadeer oo ay markaa ka baaraan degayaan ololaha military ee ay Gaza ka wadaan bal waxa ka dhalan kara iyo maxabuustii iyo wixii haddii ay sidaa ku tagi doonaan ka warrab. nimankaa marka iyaga hawsha hogaaminay marka waxaa leeyahay ogolaansho buuxdo ayay waxay ka haystaan Mareykanka. ninkii maalin hore imaanayay wasiirka arrimaha dibadda Marco Rubio oo Israa'iil tagay ayaa Mareykanka fariin loogu soo dhiibaaliyay war waxa rabtiin sameey nimanka hal marka takhalus. Rubio saas awalba wuu ogolaaday ninkan la leeyahay Trump laakiin hadda waxa la ninkana waxa yiri maxaa iska boobsiisaan Trump waaba ogol yahay cagta Maria waxa naga soo afjara. Trump kii marka hadlay markii howlgalku halka ka bilowday ayuu isaguna hadlay oo war soo saaray. haddaba telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay Trump wuxuu yiri Hamas waxay wajihi doontaa mushkilad weyn haddii ay u adeegsato maxaabiista maartay gabaad ay ka dhigato maxaabiista ay hayso. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u hanjabay xarakada muqaawamada Islaamiga Hamas isagoo sheegay mushkilad weyn inay la kulmi doonaan oo abwaabul jahiim abaabada jahiimada ay loo furi doono haddii ay maxaabiista u isticmaalaan waxa la yiraahdo duruuc bashari ama gabaad ay ka dhigtaan. isaguna dagaalku ku jira ogaada waa nin kale abwaabul jahiima kugu fura kana qiyaama fura wali dadkii marka masaakiinta meesha joogay ayaa ninka kale u hanjaba. kan wuxuu leeyahay ma ka dhigan kartaan dadka ahisaan gabaadkay u baahanyiin maxay toddoba la isla duqeynayay. marka meesha riwaayada ka socota iyo waxa Gaza ka socda waa la yaaban yahay holaca iyo waxa meesha ka socda iyo dadka kala cararaya. ilaahu dadka badbaad idinkana u duceey in ilaahay dadka mushkilada iyo dhibaatada ay ku jiraan in ilaahay uu ka saaro. waqtiga waa loo tashada waa u jeedaan cid u naxaysa laba muslimiina shala shiray islaam iyo dawladaha shiraalada iyo carab maxay tari karaan. waa kaas Netanyahu iyagoo joogu nafta ku bilaabay ilaa maanta uu garaacaya tan Trump wuxuu leeyahay abwaabul jahiima idinku furaya saana idin yeelaya. nimankiina warqaday soo qorqoreen waa kala tageen nin walba saafara ila bilaadi wadankiisa u safray wax ma yaalma khalaas. haddaba xayisiin kadib waxaan galaynaa nimankii xuutiga ahaa oo caawa gantaal nagta uga dhigay Israa'iil iyaguna galabta ayaa la weerar. marka weeraro culus ayay isdhaafsadeen iyaga Israa'iil. ma jeceshahay barashada quraanka kariimka iyo culumta shareecada hab casri ah online adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada? markaas Daaru Taqwa waxa kugu baraya quraanka hab casri ah online maadooyinka aad ka baran karto waxa kamid ah quraanka kariimka, higaada, luqada carabiga iyo culumta shareecada. isdiiwaangelintu way socotaa fadlan horugaad waxay faahfaahin kala xiriir
nambarada shaashada kaaga muuqda hamogaani dugsiga markazu daaru taqwa. sharikadda Imara Luxury Homes waa sharikad guryaha casriga ka dhista magaalada Nairobi ee dalka Kenya. haddana waxa ay ka wadaa dhismaha loo yaqaan The View xaafadda Parklands jidka 6th Avenue City Park. dhismaha The View waxa uu leeyahay adeeg kasta oo asaasi ah, waxaana uu ka kooban yahay sida 2 qol, 3 qol, 4 qol iyo waliba qolkii shaqaalaha iyo 4 qol oo 2 dabaq oo isdul saaran. waa nooca loo yaqaan duplex. haddaba imika waxa socda barnaamijka sharikadu ay u bixisay 90 days promotional kaasoo la magac baxay hoyga waa muhiime hanti yeelo. kala xidhiir telefoonada kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeeni habeennimo. maanta waxay ahayd maalinimo talaada caawa marka waa habeennimo talaada arbaca soo galayso qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka ayaynu maraynaa. haddaba qaybtan waxaynu ku faahfaahinaynaa xuutiyiinta ayaa galabta la weeraray, maxaa u geeyey iyaguna nagtaa laga saaray Israa'iil. awalay waxay yidhaahdeen dekada liraa xudayda dadku hay isaga baxeen. duhurkii hore maanta ayay war soo saareen inay dadkaa ka baxaan meesha. markaasay maqribkii inta tageenay 3 goobood oo dekada ka tirsanayn duqeeyeen. inkastoo xuutigu ay yidhaahdeen diyaaraduhu wax kalay damacsanaayeen, laakiin difaaca cirkaan kula dirirnay waa cayrinay, waa iska soo cayrinay, waa la dagaalanay. wax yar kama soo wareeganin saacadaa lagu leeyahay xuutigu dushooda uu ka dagaalamayay talaabiib naga qabta war xagee galna ay lahaayeen. marka nimanka xuutiga nima saalan ma. haddaba markaan idin tusoo wararkii ugu dambeeyey Aljazeera ay ka qortay dagaalka. haddaba telefishinka Aljazeera wuxuu leeyahay weerar ayay Israa'iil waxay ku qaaday dekada xudayda. haddaba waxaa la sheegayaa kani inuu noqonayo 12 weerar oo markaa ay ku bartilmaameedsatay 3 goobood oo markaasi ku yaala dekada. haddaba warbixintu way sii socotay. waxaa leeyahay dekada xudayda waddanka Yemen waxay la kulantay weerar saacadihii ugu dambeeyay. 12 weerar oo dhinaca cirka ah ayaa lagu qaaday. afayeenka jamaacada Ansaarullah xuutiyiinta Yaxya Sariic waxa uu sheegay in difaacaadkooda hawada ay ka hortageen diyaaradihii cadowga ayna ku qasbeen inay markaa dib u laabtaan oo ay hawada ka baxaan. xaaladdu markay halkaa marka marayso ayaa xuutigu iyaguna waa xanaaqeen. xuutigu dee niman sahlan ma ah, niman ciyaar yeelaya ma ah. nimankii marka xuutiga ah marka maxay sameeyeen war degdega isaguna goordhow intaan barnaamijka ku jiray soo dhacay. hawadii Israa'iil la isku cayrsanaya xuutiga iyo ayagii. aanadi tuso Aljazeera qoraysa waxay leedahay war degdega wuxuu leeyahay ciidamada Israa'iil waxay yiraahdeen waxaynu la diriraynaa oo aanu ka hortagaynaa gantaal laga soo riday Yemen. war naga qabta marka niman joogsanaya ma weerar ama iska daa maanta dhan way ku dul taageen. marka waxyaabaha la yaab kale marka waxaa ka mid ah xuuti ayagu go'aan gaareen. waxay yiraahdeen inta Gaza saas waa anagu waa weerarina, ma soo weerar ama iska daa adeeg ku taala. marka xaalku caawa halkaas mara wixii soo kordha waa inoo barnaamijyada dambe. haddii warar cusub ay yimaadaan oo degdeg ahna waan idiin soo geli doonaa. marka barnaamijkaygii habeennimona intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa. laagareeya oo sheergareeya barnaamijka, la socda axwaasha xaaladda waan idiin soo ururin doonaa. waan la ishayaa casa Muusa iyo waxaa ishaya gadcood baa la yidhahdaa. waxaan baas magaca ay haystaan ay ku dagaalamayaan. marka waa la isku dhegaya. marka Gaza iyo arrimeeda wixii ka soo kordha waa arki doonaa. ma sida ay Netanyahu iyo Trump rabaan ay hawsha ku dhamaan doontaa mise reer Gaza way iska difaaci doonaan. haddaba xaalku meesha ku dhamaado waan isla socon doonaa. xaaladdu way kulushahay, idinkuna ducada halkiina ka wada. intaan mar kale kulmayno asxaabay nabadgelyo.